Kenyaatiga oo isku raacay inay weerar ku qaadaan xoog leh al-shabaab Soomaaliya dhexdeeda al-shabaab waa cadow wadanka gees ilaa gees qabsaday Soomaalida ayaga laftirkooda gacmooda ku abuuran marka waxa waaye dawlad Kenya iyo dawlad Uganda iyo dawlad oo Burundi kama dulqaadi karto waa inay qoryaha qaataan oo ayaga ay la dagaalamaano al-shabaab la dagaalankiisana haddii ay ciidu la dagaalayso ama geedu ay la dagaalayaan amba oo hawadu ay la dagaalayso oo awood u leeyahay inaan ku amro waan shabaab waa cadow ummadii ka dhufeen diintii dadka nacsiyen ummadda muslimkii ay kala direen waxa waaye laakiin isku soo duubkooda waa waxaan gacmaheena ku mutaysanay waa masiibo alla xag alla ka imaatay ilaahayna waxaan ka rajeeyaa in ummadda ilaahay ka dulqaado iyadoo cid walba lala kaashanayo wax walbana ficil ay leeyihiin إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ليس dadku ayaga isu kaalmeenin oo qof walba qofka kale walaalkiisa oo soo dhaweysan dibku ma baxaayo mana tagayo tan aaminsanaa taas waay marka dadku isku soo dhawaadaano shabaabna dhinaca looga soo wada jeesto cid walba cid ku kaalmeeysane si logistic oo sax ah oo way muuqda ah ku kaalmeyso laakiin yani inta lagu hoosaasay marka adduunka isku dhaqdan laga hoos bixin Soomaaliya 100 mar asaas lagu soo galay looga baxay marka cid walba ay gudaha keenayaan waa in xisaabteeda la soo. Wassalaamu calaykum warahmatullahi